sidaan wada ognahay waxaan tagnay degmada Badaxaawo oo ah meesha uu ka bilowdo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya. waxaan ku soo aragnay dhismo weyn oo biro shub ah tiirada iyo silig la isku xiray iyo god laga qoday meesha. bilowga meesha uu godka ka bilaabanayo waxay ku taalaa xuduudka Kenya markii la fiiriyo soo intii hore labada dal u dhaxaysay oo gumaysto uu calaameeyay. laakiin waxaad moodaa mar walba marka ka dambayso xoogaha xagal inuu usii galayo dhanka Soomaaliya oo meeshii uu marka hore ka bilowday uu ka sii yara sikanayo. laakiin weli waxaa la dhihi karaa wuxuu ku jiraa dhanka Kenya. dowladda Soomaaliya heer federaal iyo heer state meeshaan ku tagnay lama xaajoorin cid Kenyan ah iyo cid dowladda Kenya mas'uulka wakiilka ah oo ka xaajoona ma jirto. waxaan soo saxminay kaliya xuduudkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo ay kala qorteen gumaystayaalkii. waxaan robot ku diyaarinay sida ay wax yihiin meesha ay marayaan dhismaha hadda meesha hadduu socdo uu tagahayo iyo dadka Soomaaliyeed saameynta uu ku yeelanayo degmada Badaxaawo. robotkaasaan soo diyaarinay waxaan u soo gudbinay dowladda state-ka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya labadaba u kala gudbinay. waa garta marka dhismaha ma socda ilaa iyo hadda mise waa la joojiyay? dhismaha waxaa dhacay safkaran waa ka dhacay bulshada reer Badaxaawo iyo company-ga dhismaha wada Kenya wakiilka ka ahaa iyo ciidamo barnaamijkaas fulinayay. waxaa dhacay dhagax tuur dhibaatooyin baa dhacay ayaga laftoodu waxay soo galeen xuduudka dabaabaad la soo galeen. marka hadda waa taagan yahay wuxuuna la taagan yahay shaqaaqadaas ka hor timid qolada dhismaha wada. waa gartay marka Jubbaland iyo dawladda isku aragti ma ka yihiin arinta darbiga? Jubbaland iyo dawladda isku aragti ka yihiin hal rabood baan soo qornay. waa gartay marka dhul intee la eg ayaa gudaha ay Kenya u soo gashay la dhigi karaa? ilaa hadda horta gudaha Kenya uma soo gelin Soomaaliya laakiin cabsi ah jirto inay mar walba marka dambayso dhismaha markuu soo socdo inuu xagal sii galay marka uu dambaysana uu ku aadayo dhul Soomaaliya gudiga. marka waxay u baahan tahay in meesha uu dhismahan u socdo ujeedada laga leeyahay iyo halka uu ku dhammaan doono iyo meesha uu marayo iyo qaabka uu marayo xuduudka u dhaxeeya labada dal in labada dawladood ay ka wada hadlaan heer madaxweynaha Soomaaliya iyo heer madaxweynaha Kenya. waa garta marka ka adinka Jubbaland ahaan waxa wax idinka saaran yahay waajibaad dadka Badaxaawo ku nool. marka ma idin suurta gashay in saraakiisha xitaa meesha ka dhaweyd ee Kenyaanka ah inaad la fadhiisataan aad la hadashaan waqtiga shaqooyinka ay socdeen? dhowr jeer baa arrintaas yaan wasaaradda amniga ay la hadashay iyo xiriirka caalamiga. anagu waa local wada hadalkanaga laakiin sida guud principle marka la fiiriyo moodaa barnaamijkan uu baahan yahay hal guud oo siyaasadeed oo laba madaxweyne ka soo bilowday. وليس دي كلام مركا أرنت بدأ يدربيان حرير وإليهن مدرين سنتين كجبلان أهان. أنا شخصيا عبد الرحمن هانتي دساسين تايبان أمسنا. واقرته. محا مركل اللي هي وأيلق بونته هي جبلان يدولة دبا. هذا جبلان سوماليا ودولة فدرالة بل كان وحى مسؤول كدولة فدرال كسيستم أهان أنه أرمها تبدأ أنت بدن. haddii wax fara badan oo door siyaasadeed badan noogama furno dawladda Soomaaliya ayaa laga rabaa door cad oo dhul iyo dad waaye waxa laga hadlayo ayada laga rabaa inaan ay ka gaarto qaraar rasmi ah go'aamo ka gaarto. anagu waxaan soo qornay fikirkanaga waxaan nidhi laba guddi labada dal ah labada madaxweyne ay saarkeeno mushkiladda inta meesha ka jirta siday tahay iyo qaabkay tahay hal isla fahmo markaas dabadeedna guddi labada dal ah loo saaro oo xuduudda naga dhaxaysay lagu ilaalinayo hanoo saaro. marka dalkooda ayaga iskale haday dhisanayaan laakiin anaguna kaanagan leenahay inaan ilaalsano xaq baan u leeyahay. marka fikirkaasna way ka dawladda Jubbaland iyo waftiga dawladda federaalka socday waa soo jeedinay labada madaxweyne inay arrintaas xal siyaasadeed ka gaaraan guddi isku dhafa u saaraan ay halkaas ay ka wada challenge gareeyaan taasna waa soo jeedinay. marka anaga ka Jubbaland ahaan doorkana waxa waaye inaan qaadano aan cadayno fikirka aan ka qabno meesha iyo siday tahay maadaama deegaanka aan nahay aan aqoonta aan u leenahay aan ku biirino qaranka ayaguna dalka iyo dadkana qaranka mas'uulka ah. waa gartay laakiin madaxdii kale ee dawladda Soomaaliya ka socotay halka tagtay waxa ay sheegeen
in wax ka badan 700 oo guriyo ay dhinaca iyo Kenya ay mareen dhismaha ay dhinacan ay ku soo hayso Soomaaliya way jiraan 790 guri weeyo Kenya ayay galeen xaduudka way dhaafeen waxay tahay dadka Soomaaliyeed 27 sano waxaan isaga jirnay habkan iyo barnaamij qorshalaana waxay marka dhulkii oo banaan oo labada magaalo u dhaxeeyo ay dadka iska dhisteen oo ay galeen dawladda Kenya lafteeda qalab bay leedahay way arkayso meeshii deganeedan way soo celin oo kamaysan celinin annaguna hadii surbiyaha ayaa nagu badnaa Soomaaliya ahaan marka way jirtaa arrintaas ayaga laftooda hanti waa meeshii gashay xaquuq bay ku leeyihiin waa dad civiliana waxay u baahan yihiin xaquuqdooda in la ilaaliyo oo arrinkaas ayaga lafteeda way jirtaa oo arrin jirta way rabeen aan ku raaciyo meeshan waxa ka socday shir 5 maalmood ka dhacay oo xoojinta nabadgelyada degmooyinka gobolka Gado iyo looga hadlayay guud ahaan gobolka Gado wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ay